Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ummadda Soomaaliyeed meel aad joogtaan waad salaaman tihiin. Videogan waxaan ku sharixi doonaa variables waxay yihiin iyo data types waxay kala yihiin ayaan ku sharixi doonaa. Marka ugu horeysa waxaa muhiim inaan fahanno waa maxay variable. Variable waxa ugu muhiimsan aan rabno inaan fahanno waa container, waa sidii box oo kale ood meel ku shubanayso informationkaagii. Marka computerka markaad rabto inaad information ku save garaysato hadhowtan informationka aad la soo baxdo waa inaad samaysataa variable. Marka variable is a memory or storage location. Computerka meel ka mid ah, maskaxda computerka meel ka mid ah ayaad wax ku shubanaysaa. Waxaad ku shubanaysaa marka waa inuu magac yeeshaa, name ama identifier ayaa la dhahaa. Waxa kale oo uu leeyahay value, informationkii aad ku kaydinaysay muxuu yahay. Marka memory locationkaas aad ku shubtay macluumaadka waxa weeyaan wuxuu leeyahay also address buu leeyahay. Addresskaas oo hadhowto markaad u baahan tahay aad kala soo bixi karto macluumaadkii. Marka haddaynu tusaale ahaan samaysano variable city magaalo is equal to Istanbul haddaan dhahno, marka waxaynu samaysanay variable nameka magaciisu ama identifierkiisu waa city. hadhowto markaan rabo variableka inaan print gareeyo city ayaan isticmaalayaa. Valuegiina waa Istanbul. Marka informationki waxaynu ku shubnay, waxaynu nidhi memory storageka computerka ayaynu ku shubnay. Halkaas ayuu markaa computerka ayaa ku shubaya informationkii isagoo markaa bytes ah. Haddaad rabto inaad markaa la soo baxdo addresska computerka ayaa garanaya. Aduu markaad print city dhahdo addresska computerka wuxuu garanayaa addresska variablekaas oo variable wuxuu leeyahay address. Memory location kasta wuxuu leeyahay address. Marka waa object address in memory ayaa la dhahaa ama identity. Intaas marka haddaynu fahanno waxaynu sameynaynaa in yaroo practice ah sida loo sameeyo variableska iyo waxay kala yihiin. Okay, intayna variableka samayn marka waa inaynu file samaysanaa, Python file. Halkan ayaynu markaa waxaynu sameynaynaa right click kabacdi new Python file. Waxaynu u bixinaynaa matalan variables iyo data types underscore data types. Okay, fileka waan samaysanay marka. Okay, variableka haddaynu sameyno matalan name is Ahmed. Marka waxaynu samaysanay variable name waxaynu u bixinay Ahmed. Khasab ma aha inuu magacu ahaado English. Haddaynu doonno variableka waxaynu ka dhigi karnaa af Soomaali. Magaca wuxuu la mid yahay Ahmed. Okay, marka variable hadda waxaynu sameynay Ahmed. Haddaad doonto name baad isticmaali kartaa, haddaad doonto magac ayaad isticmaali kartaa. Haddaan rabno inaan marka variablekii printer garayno waxaan leenahay print name ama magac kaa doontaad print garayni kartaa. Okay, control S waan save garaynaynaa codeka kabacdi ayaan run garaynaynaa run variables and data types. Marka waxuu noo print garaynayaa Ahmed. Okay, variablekan marka waa string ayaa la dhahaa. Wax walba oo aad dhex geliso quotekaas single quote ama double quote. Double quote waa markuu matalan sida yahay double quote ayaynu u bedeli karnaa meesha ku yahay single quote. Python dhib ma laha, midkaa doontaa isticmaali kartaa double quote ama single quote. Laakiinse wuxuu noqonayaa markaa string ayuu noqonayaa. Okay, sideen ku ogaanaynaa marka data typeka variablekan? Waxaanu print garaynaynaa print type kabacdina variablekan rabno inaan print garayno typekiisa let's say magaca. Okay, marka haddaynu hadda run garayno waxaan arki doonaa typeku inuu yahay string. Okay, classka mar dambaan sharixi doonaa laakiinse typekiisu waa string. Waa string waxaa loo qoraa string ayaa loo qoraa. String micnihiisu wax walba aad geliso quote dhex gelisa ayaa string noqonaya. Hataa hadduu number yahay number haddaan dhex geliyo string, haddaan dhex geliyo quotes wuxuu noqonayaa string. Typeka haddaan eegno waxaad arkaysaa inuu yahay string. Marka wax walba ood quote dhex geliso xasuusno waxa weeyaan string weeyaan. Okay,
waxaa kaloo jira marka integer waxa la dhaho oo aad gelin karto nambarada dhammaystiran whole numbers ya number one haddaynu dhahno matalan integer wuxuu noqonayaa haddaan dhaho matalan 10 waa integer marka haddaan typeka eego num1 haddaynu ran garayno waxaad arki doontaa inuu yahay integer marka integer waa whole number weeyaan negative iyo positive midku doonuu noqon karaa haddaynu hadda dhahno marka x is minus 10 weli wuxuu noqonayaa integer ayuu noqonayaa print type x waxaad arki doontaa inuu integer yahay marka integerku waa any number kastoo ka kooban aan jajab ahayn whole number ah okay numberka hadduu jajab yahay waxaa la dhahaa float integer waxaa loo qoraa int waxaa loo soo gaabiyey waa integer okay haddaynu markaa rabno inaynu samayno jajab ama decimal point number wata decimal point waxaa la dhahaa float okay marka haddaan dhaho hadda y is 2.5 waxaynu arkaynaa inuu yahay typeka markaan eegno wuxuu inoo sheegay inuu yahay float y haddaynu ran garayno wuxuu inoo sheegay inuu yahay float marka float waa any number kasta oo decimal point wata ama jajab ah okay oo markaa positive iyo negative midkood doonuu noqon karaa haddaynu y is minus 2.5 haddaan dhahno wuxuu noqonayaa markaa still waa float ayuu ahaanayaa marka waa number kasta oo jajab ah negative positive midku doono ayuu noqon karaa okay taas waxaa muhiima intaas variableska marka inaynu fahanno inuu yahay variableku inuu magac leeyahay inuu value leeyahay iyo inuu leeyahay memory location ama identity wax la dhaho meel addresskii uu kaga jiray computerka marka addresska haddaan rabno inaan ogaano waxaan odhanaynaa id marka magacii inaan horta dhahno print id oo ah identity loo soo gaabiyey kabacdi markaa variablekii aad gelinaysaa wuxuu kuu bentgaraynayaa markaa number dheer numberka aduu kuu bentgareeyo ka duwanaanaya ku aniga ii bentgareeyo laakiinse kan wuxuu ku tusayaa inuu memory locationka yahay okay muhiimadda inta badan ma baahnid inaad ogaato memory locationka laakiinse markaan hadhowto sharaxayo concept iyo advanced ah waxyaabo waxoogaa complex sharaxaadooda ayaynu u baahanaynaa inaynu fahanno identityga okay marka waxaynu fahnay hadda variable wuxuu yahay sida loo eego typekiisa sida loo eego idgiisa memory locationka marka videoda dambe waxaan sii faahfaahin doonaa typeskan ayaan hadda baranay string integer iyo float waxaan kaloo baran karnaa kuwo kale oo la dhaho complex data types oo ah list ama tuple okay data typeska hadda aynu baranay saddexdan waxaa la dhahaa primitive data types haddaad ereygaa aad maqasho waxa weeyaan waa string integer iyo float ayaa laisku dhahaa primitive data types okay maadaama aan baranay wuxuu yahay variable and data typeska kala duwan sida string float iyo integer waxaan baranaynaa oo kale comments sida loo qoro comments waxa weeyaan waa text ayaad qoraysaa code waxa weeyaan uusan programku execute garaynin ma fulinayo programku ama ma ran garaynayo laakiin waxaa loogu talagalay inaad ku qorato wixii information aad u baahan tahay matalan ama inaad xasuusato ama codekaad qorayso hadduu yahay code complex ah oo qofka u baahan yara sharaxaad inaad sharaxaadda halkaad ku qorto commentska markaad qorayso waxaad ka horreysiinaysaa hashtaggaas wax walbaad hashtag ka horreysiiso wuxuu noqonayaa adoo text qoray oo kale marka code ma aha waxaad doontaadna ku qori kartaa inta badan laakiin waxaa lagu qoraa matalan macluumaad ku saabsan codekanaad qorayso ayaa lagu qoraa
waxaa kaloo muhiim inaan fahanno inaan variableka laga bilaabi karin number. Magaca variableku kama bilaaban karo number. Haddaan dhaho 21 name is cali, aan dhaho print 21 cali, markaa inooma shaqeyn wuxuu odhanaya syntax error. laakiinse variableka lagu bilaabi karaa underscore oo markaa waa lagu xejin karaa number. haddaynu dhahno underscore 21 name is cali, dhib ma leh, markaa waad ku bilaabi kartaa underscore. haddaan ran gareeyo wax dhibaataa marka ma jiro, wuxuu print gareynayaa cali. Okay, hadda marka waxaan soo koobayaa oon PowerPoint idinku sharaxayaa casharkan wixii macluumaadkii aynu baran. Okay, haddaynu soo koobno waxaynu baranay variableku inuu magaca leeyahay, inuu data type leeyahay. Data typedanu baranay waxaa ka mid ah numberska oo ah integer iyo float, iyo waxaanu baranay string. waxaa inoo dhiman qaar kale sida list, tuple iyo dictionary on dib ka sharixi doono. Integer waxa weeyaan whole numbers, hadduu doono ha noqdo negative, positive, any whole number waxa weeyaan integer ayuu noqonayaa. Floating point ama float waa any number with a decimal point, yeah? number kasta oo dhibicda ama jajab ah, hadduu doono ha noqdo negative ama positive, midku doono noqon karaa. String waa waxa weeyaan wax walba oo la dhex geliyo quotes, yeah? single quote ama double quote, midda doontad gelin kartaa. Marka waa sequence of characters, laakiinse xasuusnow inaad haddaad number dhex geliso quote inuu noqonayo string. taas ayaa muhiim ah. marka waxaa muhiima markaad variable samaynayso inaad ogaato dhowr shay. midda ugu horeysa waxa weeyaan variableku aynu ka bilowdaa magac, letter ama underscore. numberka ma bilaabi kartid magaca variableka markaad samaynayso. marka saan hore u sharaxay, numberka ma bilaabi kartid. waa inuu ka bilowdaa letterska alphanumeric characters waxay dhahaan, waa A to Z ama 0 ilaa 9 iyo underscore ayaad raacin kartaa. marka underscore waad ka bilaabi kartaa variableka. waa case sensitive oo variableka haddaad u bixiso city oo aad lower case ka dhigto c-da, iyo haddaad city u bixiso ood capital letter ka dhigto c-da, laba variable oo kala duwan ayay noqonayaan. aad iyo aad u mahadsan tihiin. insha allah fideoda dambe ayaan kusoo sharixi doonaa wixii faahfaahina. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.